Salaamu calaykum ku soo dhowaada janaalka Maamkob iyo subscribe-na dhaha laygta iyo sheertana ku qabta. Maanta waxaan idiin wadaa silsilada taariikhda Islaamka qaybtii koobaad. Taxanaha taariikhda Islaamka oo ka kooban 12 qaybood. Waxaa qoray Sheekh Cabdirasaaq Macallin Abshir Musanif iyo Ridwan Maxamed Abdullaahi Abdi. Dhismahii Kacbada Masjidka Xaramka. Sida Alle Quraankiisa ku caddaynayo, Kacbada waxaa dhisay Nebiga Alle ee Ibraahim iyo wiilkiisa Nebiga Alle ee Ismaaciil calayhi salaam. Qisaduna waxay u dhacday sidaan. Nebiyullah Ibraahim asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa dhulkan loo yaqaan Ciraaq magaalo yar oo saraan daanta galbeed ee webiga Furaat oo magaceeda la yiraahdo Ara. Waa meel hadda ku aadan Kufa agteeda, waxaana jira looxaan dhulka laga soo faagay hadda oo laga helay warar faahfaahsan oo ku saabsan magaaladan iyo qoyska Ibraahim calayhi salaam iyo xaaladooda diineed intaba. Ibraahim calayhi salaam magaaladan waa ka hijrooday dhinaca magaalada kale ee Xaraan, kadibna dhulkan Falastiin, halkaas oo uu ka dhigtay saldhigga weyn ee dacwadiisa. Haddaba Ibraahim calayhi salaam wuxuu u bixi jiray safaro dacwo oo uu ku maray dhulka Falastiin oo dhan iyo meelo kale oo dunida ka mida. Safaradan mid ka mida ayuu Ibraahim calayhi salaam ku tegay dhulka Masar, halkaas oo uu Fircoonkii Masar ka talinayay u degay shirqool ka dhan ah Ibraahim calayhi salaam iyo zawjadiisa sharafta badan ee Saara. Shirqoolkan oo ahaa isku day uu Fircoonkani isku dayay kufsi uu la damcay Saara oo ahayd mid la siiyey quruxdii adduunka nuskeed. Alle shirqoolkan waa ka badbaadiyey ayadoo Fircoon uu ka arkay Saaro mucjiso weyn oo uu darteed aqoonsaday xiriirka weyn ee Saara ay la leedahay Alle, uuna qirtay fadligeeda iyo sharafteeda, markaana uu siiyey gabar shaqaale ah oo magaceeda la dhaho Haajara. Saarana ay dhankeeda u guur isay gabadhii ninkeeda Nebiga Alle ee Ibraahim calayhi salaam. Ibraahim calayhi salaam wuxuu ku soo laabtay Falastiin asagoo Alle ka siiyey Haajara Ismaaciil. Haddaba dhalashada wiilkan wuxuu Masir ka keenay zawjada weyn ee Ibraahim calayhi salaam waa Saare. Inaysan ayadu dhali jirin darteed ilaa ay Ibraahim calayhi salaam ku kaliftay inuu fogeeyo oo masaafuriyo Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil. Ibraahim calayhi salaam wuxuu la safray Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil ilaa uu kala soo galay dhulkan Xijaas, uuna dejiyey geed weyn hooskii oo ku yaal tog aan beero lahayn oo u dhow barxadda uu Alle u doortay inay noqoto beydkiisa sharafta leh ee xaramka, markaa ah dalcad kor uud heer oo daadadku ka maraan labada dhinac. Wuxuu dejiyey geed weyn hooskii oo ku beegan ceelka Samsamka. Meesha uu ku yaal korkeeda mana jirin markaa cid ku nool eeryadan, biyona ma lahayn. Wuxuuna ag dhigay dambiil ay ku jiraan xoogaa timira iyo sibraar biyo ah, waana iska tegey. Markuu wax yar ka dhaqaaqay ayuu gacmaha kor u qaaday isagoo Alle ka baryaya inuu keligii ku halleeyey, ugana tegay dadkaas meesha cidlada ah lagaga tegay, kagana baryay Alle inuu ka dhigo meel dadka qalbiga kaga taal oo ay isaga soo shubmaan, uuna ku irsaaqo dadka ku nool noocyada timaarta si ay Alle ugu shukriyaan. Duca dheer oo Alle ku sheegay quraankiisa suurado badan sida suuradda Ibraahim dhammaadkeeda. wuxuuna Ibraahim calayhi salaam isaga laabtay dhulkii Falastiin. Isla markiiba saadkii yaraa waa dhammaaday, halkaas oo Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil gaajoodeen oomeyna. Markaas Alle uu u soo fatahay isha macaan ee Samsamka naxariista iyo fadliga Alle, taasoo u noqotay quud iyo wax ay gaajada ku moodaan. Qisadana waa qiso dheer oo la wada yaqaan. Muddo kadib waxaa meeshii soo maray qabiilo Carbeed oo loo yaqaan Jurhamta labaad, oo markii hore mari jirtay togaan, hase ahaatee aan ku aqoon biyo iyo dad midna. Markay arkeen Haajara iyo wiilkeeda waxay uga idan qaateen inay la degaan halkaas oo Ismaaciil uu ku dhex barbaaray. Qabiiladan Carbeed bartayna afkooda.
ibraahim calayhi salaam dhinaciisa wuxuu safaro badan ku soo aaday maka si uu u kormeero duriyaddii uu meesha kaga tegay inkastoo aan la aqoon inta goor uu kormeerkan ibraahim calayhi salaam ku yimid. haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa laba ka mid ah labadan safarkan hore intuu ku guda jiray ayuu alle subxaanah riyo ku amray nebi ibraahim calayhi salaam inuu gowraco wiilkiisa ismaaciil alla u dhowaansho darteed arrintan oo ahayd imtixaan adag oo alle ku marsiiyey ibraahim calayhi salaam inuu wiilkiisa keligii lagu arko gowraco. sidoo kale ismaaciil inuu aabbihiis ka yeelay inuu fuliyo waxa alle amrayo. markay labadooduba alle u hoggaansameen oo imtixaankii ku guulaysteen ayaa alle ugu beddelay wan weyn. taxanaha maanta halkan ayaan ku joojinaynaa la soco qaybta labaad insha allah. la igsaar muuqaalka daawadaha qiimaha badanow subiskareybna dheh janaalka maan kobciye.